carada badan nagala dhaafo xildhibaanada lagu qancinayo oo aan ka jawaabin su'aalaha xildhibaanadu ay weydiiyeen su'aasha lagu weydiiyey waxay ahayd xildhibaanada ayaa ciidamadii waxaa looga reebay jagboyntiyaal fogfog oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay joogaan sida aan la soconana meeshan waxaa degan hay'adii dawladda madaxweynaha kaliya ma degan xukuumaddiyaa degan baarlamaankiyaa degan waxaan rabnaa marka mudan wasiir amarkaas yaa bixiyey inaad noo sheegto ma ogtahay taliyihii hoos yimaadaan iyo asaga amrada laga rabaa waxaas waa balaaqo annaga ma rabna amarka yaa bixiyey waaye waxa lagu weydiiyey arrinta istaafyada waxaa dhowr mar lagu soo celceliyey amarka yaa bixiyey amarka horta waxaa bixisay xaaladda dhacday ayaa amarka bixisay xildhibaanadayda qaaliga ah waxaan ka fikirayno waa amniga dalka waxaan ka fikirayno waa amniga madaxda qaranka ee adugu aad tihiin sharci dejinta ugu samaysay waxaan nahay ilaaliyaashii waxaan bannaanka u taaganaha waa adinka askariga jidka taagan ee laamiga roga habeen iyo maalin waxaa ugu taagan yahay waa adinka qalad marka shaqo lagu jiro boqolkiiba boqol wax walba saxay noqonaya lama dhihi karo way imaan karaan dhaliil way imaan kartaa qaladaad laakiin waxaa muhiima sida lagu sixi lahaa in la fiiriyo arrinta ayada waxaad la socotaan ilinka kashmiir SYL area SYL waa dhacdadii shanaad ama lixaad oo ka dhacaysa laba dhacdooyinkaas ka miduhu waxay ku dhaceen sida hadda dhacdada ugu dambaysa ay ku dhacday dad isu soo ekaysiiyey ciidamada amniga oo lugaynaya oo aakhirkii ay sababtay inay hoteeladii ay gudaha u galaan sidaas daraaddeed waxaa timiday waa la kala gara waayey su'aal kale oo soo socotay noqon doontaa oo aheeday sababta ay meeshaas u yimideen maxay tahay sababta ay meeshaas u yimideen waxay aheeday ciidamadii istaafyada ahaa marka ay soo dhaafaan jagboyntiyada iyo madaxtooyada waxay imaanayaan ilig dhammaan halkaasaa lagu dejina isma garanayaan colal kala duwan ay ka tirsan yihiin qofka soo dhex galana lama garan karo askarigii ilaalada ahaa ee ama jooga tiyaatarka ama jooga ceelgaab ama jooga sayidkana ma jooji kariyo askariga lugaynaya sababtoo ah 300 askari 400 askariya gadaashiisa fadhiisa marka ma istaafyadii la socda madaxda qaranka ma shabaaba oo ma midkii cadowga ahaa oo ummadda inuu dhibaateeyo doonaya taas ayaa horta muxuu ahaa ii sheegay keentay iyo baaristii dhacdada oo weli socota in la yidhaahdo jagboyntiyada ugu horeeya meelaha madaxtooyada laga soo gelaayo ha lagu hakiyo istaafyada ilaa amar dambe taas ayaa muxuu ahaa ii sheegay amarka horta sidaasuu ku baxiyey sidaasuu ma aha waxaan rabaa marka iyada laba inaan u kala qaado xildhibaanada sharafta leh iyo madaxda muxuu ahaa ii sheegay kale guud ahaan iyo ummadda kale oo Soomaaliyeed oo socotaba qofuna waa qof gudbaya wadada isticmaalaya oo toos u gudbaya oo inta ka soo gala tiyaatarka sayidka ka baxay ama inta ka soo gala tiyaatarka ka gudbaya ceelgaab qofkaas mas'uuliyadda uu doonayo istaafkiisa ma laga dejinayo gaariga uu gudbaa amarkaasna waa ka bixin su'aasha labaad oo waxay tahay arrinta ku saabsan gobolka Gadow ciidamada Itoobiyaana hadda koor oo amisom ka tirsanay dad mas'uuliyiin oo maamul degmo ah iyo maamul gobol ay xirxireen maalin dhaweyna waa tii balad xaaway kor istaageen inuu tago madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland su'aasheedu waxay tahay sida arrintaas ku dhacday maxay wasaaradda gaashaandhigga uga hadlay ilaa ciidamo dawladdu ay leedahay meesha jooga mas'uul ayaad amniga ka ahaydeen waxaan mudushiin ayay ku dhacayeen ciidamo dalkana inta soo galeen ay operationnadaas ka fulinayeen gudaha dalka sidee arrintaas ku dhacday su'aasha saddexaad mudan gudoomiyahaas la yoogan oo ka codsana su'aasha saddexaad waxay tahay taliyaha xoogga rabayna weydiiyo bishii Sebtembar xerada Helsinki waxaa ka dhacay weerar maleeshiyaadka al-shabaab ay qaadeen oo ciidamo dawladda federaalka Soomaaliya lagu laayay ciidamadii ka haray dibkii ciidamadaas loo geystay waa la kala firdhiyay taliyaashoodiina xabsiyada maanta jiifaan intii ka soo hartay taliya waxaan ku weydiiyey ma waxay mudnaayeen nimanka saraakiisha ah naftoodii u haligay inay badbaadiyaan dalka iyo dadka in la xirxiro miyay mudnaayeen mase in lagu abaal mariyo inay difaacaan qaranka Soomaaliyeed inaan su'aashaas ku weydiiyaan raba isla sidoo kale xerada Hiilweyne dib noocaas oo kale ah ka dhacay laba habeen ka ayadana tafaasiisheeda inaad nala wadaagto ma isla sidii ceelsirin ay martay ayaduna mari doontaa mase tilaabooyin kale idinkaga qorshaysan mideeda kale ciidamo baaxadaas la eg inay Hiilweyne inta yimaadaan ka dagaal galaan ayagoo socda sida ay ku dhacday ayadana waxaan rabnaa su'aashin inaad uga jawaabtaad yaa la maasantay dalkayga qaaliga ah xildhibaan xildhibaan salaad wuxuu weydiiyey su'aal heeday muxuu ahaa ii sheeg istaafyada ayda taas waxaan isleeyahay meeshaas istaafyada inooga baxday
وعقلوا من الجيش قال هذا جدو قبل كجدو عندما إثيوبيان هو صقلي وحوم علينا يا أرتا وادي دجالة ملان كسعودنا وحن شاككم مغلمين إثيوبيان هلو يمد وادي دجالة وضي مركو واحد يردك الشعب كي يكون كلامه اسكتر تنكو دجالة باي مركو ولا بس هو معلومة كرجالكم وأنا وارتا بلا شعب دل كانوا حقصوا من عيدما عم يصوم إثيوبيان قيل يكتر مركا عسكري إثيوبيان كأي جد السعودة وعنو ملا يقول شرعية يكون يبدأ ويكون شرعية برلمان كأنسية يكون يبدأ وعن ربا وأوصى صعد حدنا كيجا لكن وعن حساب تقول درساتها مرة دون جو إثيوبيان كي كلا أنا أقول لبطوة كلا جرامة كرو إسلا إثيوبيان إصلاح waxaan isku daynay ama sida waan ula soconaa dhammaan gabadhfallada ku dhacaya ummadda Soomaaliyeed oo ay geysanayaan ciidamada nabad ilaalinta ku jooga oo gobollo kala duwan ka geysanaya kaligood ma ahan waxa la socotaan gobolka Gedo iyo xuduudda Kenya arrimaha in badan ka socday oo xitaa saameeyay ganacsigii wadanka qaybo kamid ah saameeyay la socotaan meeshaas kaliya ma waxaan isleeyahay marka gabadhfalladaas dhacaya waa mid guud ahaan qaranka oo xildhibaanadu ay yihiin hay'adda ugu sareysay u taala qusaysan maxaan isleeyahay marka inaan si hoose loo fiiriyo si hoose loo fiiriyo u baahan tahay isleeyahay waxaan rabaa inaan u gudbo arrintii ceel saliini xildhibaankayga qaaliga ah weydiiyey waa sax ceel saliini xildhibaankaygu wuxuu yiri saraakiishii joogtay ma waxay mudnaayeen in la abaal mariyo mase waxay mudnaayeen in xabsiga la geeyo waxaan rabaa horta qof walba oo dalkan mas'uuliyadu ka saaran tahay dalkay joogto ha ka joogto waxay xaq u leedahay in lala xisaabtamo sida adigu ma noola xisaabtamaysano hadda halkaan loogu yeertayno saaka idiin soo istaagin amarkiina la-aantiisna ana kaana ka bixi karin waxaan rabaa marka ceel saliini ciidanka markuu meel joogo wuxuu ku xisaabtamaa awooddiisa iyo waxa meesha yaalla ciidanka aad meesha geysay hubka aad meesha geysay iyo waqtiga aad ugu tala gashay nidaamka difaacooda iyo waqtiga aad ugu tala gashay inay isdifaacaan haddii marka qorshihiin la dejiyey oo difaaca laga dejiyey si aan waafaqsanayn ay wax u dhacaan waxaa qasaba in la helo cidda dhalisha iskale iyo sababihii keen sidaas darteed xildhibaankayga qaaliga ah meeshaas waxaan geynay ciidan ku filan oo aan isleenahay runtii aan difaaciisa ugu talagalnay waxaan geynay hub ku filan oo aan isleenahay muxuu ahaa ii sheegay waqtiga loogu talagalay ay isu gaarsiin karaan ciidamada intooda kale meeshaas marka waxaa ka yimid dhaliin taas ayaana waxay keentay in saraakiishii meesha mas'uulka ka aheeday lala xisaabtamo xabsigana la geeyo hadday dambi yeeshaan oo muxuu ahaa ii sheegay eedeymaha loo soo jeediya ay yeeshaan sharcigu waxbuu ka qabana haddii ay yeelo waayaan waxay xaq u leeyihiin inay xurriyadoodii helaan shaqadoodiina ay dib ugu soo noqdaan wayna dhacaysaa ilaahay dhankiis mana filaayo sabab aan maantay mas'uuliyadda la saaran anugu takrifalno oo cadaalad darro ay ugu dhacdo inay jiri karto ma u malaynayo marka ayadana sidaasay muxuu ay sheegay ay heeday waxaa sidoo kale ayadana ku jira hiirweyne waxaan rabaa hiirweyne inaan idiin caddeeyo xildhibaanadayda qaaliga horta waxaan aad u jeclaa lahaa guddoomiye iga raalli noqo yaa laygu qabsan waa kaftamayna waxaan jeclaa lahaa mar haddii xildhibaanadeena sharafta lahaa ee qaaliga ahaa ee guddoomiyaasheenna ay fadhiyaan ay nawceen oo guddiyadii kala duwan ay fadhiyaan hadalka lagu hadlayo hadalka meedigu uusan ku jirin aad u fiicnaa leh wixii baraha bulshada laga arkay inuusan ku jirin aad u fiicnaa leh anuu taliya ciidanka xooggaan ahay xeerada hiirweyne weerar iyo ka dhaca lagu qabsada ma jirin laakiin waxaa jira xerada hiirweyne meel ka baxsan oo xaafado aheedo askar ay deganeeday in nimanka cadowga ah ay soo weerareen xaafaday aheeday xero ma aysan ahayn xero meesha ay soo weerareen oo deegaankaas waxaa ku sugnaa dad shacaba iyo nin sargaal oo meesha deganaa iyo laba askari oo la socda xerada ciidankana ma aysan ahayn meeshaas waxaa ku dhintay 4 qofood oo shacaba iyo ninkii sargaalka ahaa laba askari oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna way ku dhaawacantay ayna way joogaan xildhibaanadana
waa nabad hadda inta ka sokaysay hadday yidhahdeen war ma hubantaa waa wada waa geyna waa gudoomiye 2 3 4 waa lagu dari karaa waa soo kusina meesha uga dhacayna marka taasna waxaan isleeyahay ayadan muxuu ahaa ii sheegay sidaas ay ahayd hilweyna xildhibaankayga qaaliga ah